بسم الله الرحمن الرحيم ومعلن كمادة إنجليشكا waxaan halkan ka guda galeynaa cashirkeena koowaad qaybtiisa afaraad waxaana kaga hadli doonaa isticmaalka kelmadda long. kelmadda long macnaha wuxuu noqon karaa dheer ama dheer intaba waa la dhihi karaa. Okay, aan cashirkeena u guda galno. Long, kelmadda long is used for things. waxaa loo isticmaalaa things waxyaabaha ama shayyaasha ayaa loo isticmaalaa long. Okay, aan tusaalayaashan fiirino. Philip iyo Nathaniel conversationkooda oo loo isticmaalayo kelmadda long aan fiirino. Okay, Philip wuxuu yiri, how long is Catherine's beautiful light blue dress? How long is Catherine's beautiful light blue dress? Ofursa. Catherine cambuurkeeda buluuga ah, cambuurkeeda iftiinkiisa uu buluuga yahay ee quruxda badan dhirkiisa ilaa intee ayuu la eg yahay? sidaas ayaa laga wadaa. How long is Catherine's beautiful light blue dress? Catherine cambuurkeeda iftiinkiisa uu buluuga yahay eena quruxda badan dhirkiisa ilaa intee ayuu la eg yahay? Nathaniel wuxuu yiri, her beautiful light blue dress is to her knees. Okay, Catherine cambuurkeeda iftiinkiisa uu buluuga yahay eena quruxda badan is to her knees ilaa jilbaha ayuu u joogaa wey. dhirkiisa ilaa jilbaha ayuu dhan yahay weeyaan. is to her knees ilaa jilbaha ayuu u joogaa. su-aashii hore ayaa waxay dhirkiisa ilaa intuu la eg yahay? ilaa jilbaha ayuu la eg yahay weeyaan. marka how long is Catherine's beautiful light blue dress? Catherine cambuurkeeda iftiinkiisa uu buluuga yahay eena quruxda badan dhirkiisa waa ilaa intee ama ilaa intee ayuu la eg yahay dhirkiisa? Her beautiful light blue dress is to her knees. Okay, Catherine cambuurkeeda buluuga ah iftiinkiisa eena quruxda badan ilaa jilbaha ayuu u joogaa weeyaan. Okay, Philip wuxuu yiri, what color is her hair? Catherine timaheeda midabkooda waa maxay? midabka timaheeda waa maxay? and how long is it? timaheeda dhirkoodana ilaa intee ayay jiraan? Okay, what color is her hair? Catherine timaheeda midabkooda waa maxay? and how long is it? dhirka timaheedana ilaa halkay jiraan? ilaa intee la eg yihiin? sidaas weeyaan. Nathaniel wuxuu yiri, her hair is dark brown. soo ma jeedid? timaheeda midabkooda waa midabka kafayga ah weeyaan. Okay, waxay u madow yihiin sida kafayga oo kale, brown oo kale weeyaan. Okay, and it is short. timaheedana sidoo kale way gaaban yihiin, only to her shoulders. garbaha ayay u joogaan weeyaan. Okay, her hair is dark brown. tinteeda midabkeeda waa midabka kafayga ah weeyaan. and it is short. timaheeda way gaaban yihiin haddana, only to her shoulders. waxayna u joogaan garbaha ayay u joogaan. Okay, ama garbaheeda ayay u joogaan. Okay, Arthur iyo Henry conversationkooda u fiirso. how long were the questions on your science test? u fiirso. imtixaankaaga sayniska ah su'aalihiisa ilaa intee ayay dheeraayeen weeyaan ama dhirkooda ilaa intoo la ekaa? how long were the questions on your science test?
imtixaankaaga sayniska ah su'aalihiisa u fiirso su'aalaha imtixaankaaga sayniska ahaa dhirkooda ilaa intoo ayuu la ekaa ilaa intee ayay la ekaayeen su'aalahaas okay Henry wuxuu yiri the first 3 questions were not very long saddexda su'aalood ee ugu horeysay ee imtixaankayga sayniska ah were not very long aad uma dhaadheereen it means inta kale way dheeraayeen saas laga wadaa okay Arthur wuxuu yiri were your answers long jawaabahaga ma dheeraayeen jawaabo dhaadheer miyaa imtixaanka ka bixinaysay sidaas weeyaan Henry wuxuu yiri some of them were long jawaabaha qaar aad bay u dheeraayeen some of them were long jawaabaha qaar way dheeraayeen inta waa dhigi kartaa but others laakiin kuwa kale were short way gaabnaayeen only 1 or 2 words hal ama laba eray ayaan kaga jawaabayay inta kale saas laga wadaa some of them were long su'aalaha qaar jawaabahooda way dheeraayeen but others laakiin qaar kale waa short way gaabnaayeen qaar kalena jawaabaha aan ka bixiyay way gaabnaayeen only 1 or 2 words waxaan kaga jawaabayay hal ama laba eray ayaan kaga jawaabayay sidaas ayaa macnuhu yahay okay qaybtaas waxa weeyaan long oo loo isticmaalayo thanks weeyaan qaybtanna waa long oo loo isticmaalayo time long waxa kaloo loo isticmaalaa time in lagu cadeeyo ayaa loo isticmaalaa okay Ashley iyo John conversationkooda fiiri how long is a week okay isbuuca ilaa intee ayuu dheer yahay weeyaan how long is a week isbuuca ilaa intee ayuu dheer yahay weeyaan John wuxuu yiri a week is 7 days isbuuca ilaa 7 maalmood weeyaan is 7 days waa 7 maalmood isbuuca dherkiisa waa 7 maalmood sidaas ayaa laga wadaa Ashley wuxuu yiri how long is a year sanadka ilaa intee ayuu dheer yahay weeyaan John wuxuu yiri a year is 2 months sanadka waa 12 bilood weeyaan okay Natalie iyo Catherine conversationkooda fiiri how long were you in London ilaa intee ayaad joogtay weeyaan how long were you in London ilaa intee ayaad joogtay Catherine waxay tiri I was in London for 2 years London 2 sano ayaan joogay from 1989 to 1981 1989 ilaa 1991 ayaan joogay sidaas weeyaan okay Natalie wuxuu yiri how long were you on the big island of Hawaii jasiirada weyn ee la yiraahdo Hawaii ilaa intee ayaad joogtay ama muddo intee la eg ayaad joogtay Catherine waxay tiri I was on the big island of Hawaii for 6 months from January to June last year jasiirada weyn ee Hawaii waxaan joogay 6 bilood ayaan joogay laga soo bilaabo January ilaa June ayaan joogay oo sanadkii tagay ah okay Anthony iyo Worth conversationkooda wimo Anthony wuxuu yiri how long will you be at the library maktabada ilaa halkee ayaad joogaysaa weeyaan maktabada how long will you be at the library maktabada ilaa intee ayaad joogaysaa how long will you be at the library maktabada ilaa waqtigee ayaad joogaysaa okay Worth wuxuu yiri I will be there from 10 to 3 soo ma jeedid maktabada waxaan joogayaa laga soo bilaabo 10 ilaa 3 ayaan joogayaa okay Anthony wuxuu yiri how long
will you be with Dr. Johnson? Dr. Johnson ilaa intee ayaad la soo joogaysaa weeyaan. How long will you be with the Dr. Johnson? Dr. Johnson ilaa intee ayaad la soo joogaysaa weeyaan. I will be with him waxaan la soo joogayaa a long time. Waqti dheer ayaan la soo joogayaa weeyaan. Is there any problem with that? wax dhibaataa miyaa arrintaa ku jirta weeyaan. wax dhibaataa miyaa arrintaa ku jirta. Okay. qaybtan halkaas ay inoo joogto. la soco qaybta xigta.